السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وبوليمور ميديا وبرتين halkan inuu ku soo gudbiyo wararkii warbixinada aad kooda ugu doorka roon maanta oo taariikhdu tahay 2 bishii shanaad 2020 waxaan idinku haynaa Kim Jong Un oo dib mar labaad uga soo muuqday shaashadaha dunida isaga oo lagu tirinayay ninkan in asbuucyadii la soo dhaafay ee bishii tagtay aan lagu haynin nolol iyo geeri ayaa waxa uu si lama filaan uga soo muuqday shaashadaha dunida isagoo waliba furaya meel lagu sameeyo kiimikada hogaamiyahan da'da yar ayaa waxa uu dhashay 1984 isaga oo waxbarashadiisa asaasiga hoosena ku soo qaatay jasiiradda yar ee magaalada Pyongyang u jirta 80 kiiloomitir halkaas oo hadda u tahay hoy uu isagu degan yahay haddaba hogaamiyahan ayaa waxa uu tan iyo markuu xilka kala wareegay aabihii oo geeriyooday 2010 ayaa waxa uu noqday madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi isaga oo ku maamulayay shuruucdii aabihii uu dejiyay ayaa waxa uu ku daray waxyaabo ka careysay wadamada reer galbeedka kuwaas oo ah si isdaba joog ah isagoo u tijaabinaya gantaalada xambaara nukliyeerka haddaba taas markii ay reer galbeedka ka careysay ayaa waxa uu ninkan oo taageero buuxda ka helay wadamada Shiinaha iyo Ruushka waxa uu 2013 2015 2016 tijaabiyay gantaalo ka duwan kuwii hore uu tijaabin jiray kuwaas oo ah gantaalaha loo yaqaan Wazun 07 kuwaas oo gaaraya gobolada Mareykanka guud ahaan amaba dunida meesha uu doono iyagoo waliba qaadaya nuclear hogaamiyahan ayaa waxa lagu tiriyaa inuu yahay mid aad xukunkiisu adag yahay ama kaligiistalisa oo wadanka Kuuriyada Waqooyi ka dhigay mid aan laga helin waxyaabaha xogta ah isaga oo gabi ahaanba meesha ka saaray adeegyada internetka ama waxyaabihii macluumaadka la isaga gudbin jiray kaliya dalka oo leh hal telefishin iyo hal raadiyo ayaa waxa uu hoos tagaa amaba uu ku yaalaa xarunta uu degan yahay ee jasiiradda lagu magacaabo Mansun oo u jirta 80 kiiloomitir caasimadda Pyongyang haddaba waxaa la sheegaa hogaamiyahan inuu aqoonta xagga luqadaha uu ku soo qaatay dalka Switzerland isagoo aabihii intii uu talada hayay uu halkaasi u diray waliba qaabka uu ku joogay Switzerland ay ahayd nin ka shaqeeya safaaradda Kuuriyada Waqooyi ee ku leedahay Switzerland ayuu wuxuu ka ahaa adeege amaba gacan yare u ah qunsulka halkaasi u fadhiya dalka isagoo ku joogay magaciisa ahayn ayaa waxa ay dunidu ogaatay markii taariikhdu ahayd 2009 markii lagu arkay fiidiyoo uu aabihii duubay isagoo dhinac fadhiya kaasoo horey ay uga shakiyeen wadamada Faransiiska iyo Ingiriiska sawirro ay ka qaadeen markii la isbarbar dhigay ayaa waxa ay muuqatay inuu ahaa Kim Jong Un ninkii wax ka baran jiray jaamacad ku taal Switzerland oo waliba dhinaca luqadaha ah haddaba Kim Jong Un waxa uu la kulmay sanadii 2018 madaxweynaha dalka Mareykanka oo noqday madaxweynihii ugu horeeyay oo uu la kulmo madaxweyne Kuuriya Waqooyi waxa kale oo uu la kulmay sanadkaasi madaxweynaha dalka China Xi Jinping waxa uu haddana isla sanadkaasi uu la kulmay hogaamiyaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin Kim Jong Un ayaa waxa la sheegaa inuu leeyahay 17 guri oo kuwa ugu dhaadheer ah Kuuriyada Waqooyi waxa kale oo